markale barnaamijkii toddobaadkan oo kale aad nooga barateen halkan idin ka soo baahinay lagu magac darnay maxaa karuna waxaana habeenkan caawa marti noogu ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo booqasho ku maray maalmahan dalkan jamhuuriyadda Djibouti ka dambo markii uu socdaal ku soo gaara bixiyay gobolka dalal fara badan oo ku yaala mudane madaxweyne habeen wanaagsan waxaana aan mudane madaxweyne ku faraxsanahay anoo ku hadlaya magaca soo saarayaasha barnaamijkan jeclayna ku soo dhaweey barnaamijkan cadadkiisa aad ka qayb qaadanayso maanta waxaana taariikh ahaan nolosha siyaasadda waxa uu soo galay mudane Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal sanadku markii ahaa 1954 waxaana uu ka mid noqday hormuudadii markaasi ummadda Soomaaliyeed isku geeyay meel ee asaasay jamhuuriyaddii Soomaaliya waxaana ay noqotay in uu ka qayb qaatay nolosha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya waxaana uu ahaa ra'iisul wasaarihii uu afgambiyay General Maxamed Siyaad Barre mudane madaxweyne xeerka barnaamijkan waxa uu yahay 3 wariyayaal yaan ku wadnaa saddexda wariye waxa aan u yeedhay horta marka hore oo wax ka weydiin doona nidaamka iyo nolosha balmaanta Soomaaliland oo ah Umar Ahmed Umar Kaalay waxa uu aniguna waxaan bal isku day doona aakhirtaanka bal wixii ay ka tagaan ragga wariyayaashii inaan wax ka ilaaho mudane madaxweyne marka hore salaan diiran marka xiga su'aasheedu waxay tahay waxa tahay rugcada siyaasadda u soo bislaaday kolka inta aanan xaaladda Soomaaliland ay imika ku jirto aanan wax kala soo qaadin waxa aan jecelahay inaan ku weydiiyo su'aasha ah maadaama aad tahay nin goobjoog ka ahaa kolkii abuuritaanka Soomaalida weyn aanad ahayd ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay sida uu imika saaxiibkay soo sheegay isku tagga labada isticmaar Talyaaniga iyo Ingiriiska ma waxa asmaxay cadifad ka dhalatay dadweynaha mise xusbiyadii siyaasadeed ee kolkaas ka jiray labada gobol oo go'aan ku gaaray in ay labadii gobol ay isku geeyaan waxaan u jeedaa wax Union Act ama heshiis sharciyan oo kulka la isla gaaray ma yu jiray intaan su'aashaada ka jawaabin waxaan jeclahay marka horeysa inaan aad ugu mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Alxaaj Xasan Guuleed oo meeshan igu soo dhaweeyay ina casmay dawladdiisa iyo shacbiga reer Djibouti oo isaguna si fiican oo aanan istaahilin oo xamaasad iyo walaalnimo iyo wanaag la soo dhaweeyay intaaba inaan hortu ka horeysiyo aad walaalayaal mudantihiin u mahadsantihiin walaalnimada waxa la tusteen iyo kalgacalka la tusteen walaalnimada keentay waxaan idinka mudanay ma aha ta kale marka su'aashaadii baan soo noqonayaa waxay dhacay 60kii laba kelmadood oo laguma soo koobi karo waxay u sababaha in Ingiriis oo maxay ahayd Brigadier Prime Minister ayaa wuxuu yiri dabayl ayaa caalamka maraysa wixii wal ee hore u jiri jiray bedelaysa wind of change ayaa dhacay marka 60kii waxa joogay dabayshaas ayaa wax waday ra'yi baa laga hore u soo dhisnaan jiray walwaljeesha Soomaaliyeed hal isu geeyay oo ay ka timid shanta Soomaaliyeed waqti Ingiriis uu haystay afar dal oo Soomaaliya Djibouti ma ka maqnay inta kale hayay walaasa afartii dal dawlad qura cimilada iyo lacag qura iyo administration qura u yeeshay Somaliland iyada inta waxaysataa barigaas ay wax qabsatay ay gacan qabsatay waxa ay leedahay barako leedahay iyo waxa ay leedahay barwaaqo leedahay wada jirku ayaa bariga la arkay fikradda la yiraahdo Greater Somalia bariga dagaalkii soconayay ayay dhalatay 60kii haddaba barigaas aad ogto oo manaanta loo oomay in Soomaali maxay ahayd kulligeed meel la isugu geeyo barigaas ay abuurantay
laakiin maca alasaf inta laga fadhiistay oo la yidhi sidee bay ku iman kartaa wixii siyaasiya markii aad arrin siyaasiya markaad doonto inaad fuliso uun cadifad iyo sidaasaan doonayaa kuma fuli karo waa in loo dhigaa takhdiid bilaan loo dhigaa walaa sidee buu ku iman karaa ra'yigii annagu markaa 60kii iyadoo aan wax takhdiidahoo badan oo la dhigay aanu jirin dadkii aanu xagga ugu tagnayna kulligii aanu sidii annagu bilijmaacan uga wada raalli ahayn israac ama ugu wada haraadanayn aan loogu wada haraadanayn ayaa la israacay bilowgii waa laaxin ka galay bilowgii ayaa laaxin ka galay oo labadii actadii unionadii aanu anagu ka fulinay hargeysa xamar lagama fulinay mid gooni ayaa laga fuliyey marka dadka looyaradii waxay yidhaahaan juridically yani sharciyan marka loo eego laba dalbeys may raacin sharci israac sharcihi ma dhicin waayo waxay wax la wada baaskareeyo qaynuun qura oo dalka isku mid ah isku xidhay in la baaskareeyo waa un maxay tahay hadal weeyay marka dalka waa israac sidoo sano ayuu wada jiray oo waa israacay wad mahadsantahay waxa kale oo ku weydiiyey adigu laftigaagu goorma ayaad istiri isku tagaasi khalad buu ahaa ama base waa aad ku dadaashay kolkaa wixii laga bilaabo inaad khaladka aad saxdid haddii xitaa ay kula gaadhayso kala goyn qaladka anagu markii hore ee aanu meeshii raacnayn laaxin baa galay khalad muu ahayn laaxin baa galay laaxinkii dhahaanu ka qarsanay waa jirtay mar aanu baarlamanka nidhi maxay hayde xaggaa ka sheegno nidhi waar wixii laaxin baa jira laga saaro laakiin oo muddo laysku hayay laysku hortaagnaa laakiin waa layska liqay taas labadii dal inay israaceen baa ayaa loo ictiraafay labada geesoodba 30 sano waa tii la wada jiray israacan markaa kala go-an iminka waxaa keenay laba hal waxaa dhacay maanta soomaaliya aanay jirinba dad cunaya mooyaane xamar maanta ay tahay meel laga guuray oo baaba'day ghost town ay tahay iyo wixii dhashay 30 sano khusuusan intii uu afweyne dhulka ka madax ahaa wixii dhashay operation ahaa waxaa jiray ka warrami maayo waa laga wada warhayaa dalka Soomaaliland la yidhaaho 500,000 oo ka mid ahaa ayaa carray oo markaa Abdulxabash kaaman cayreed ku jira dad ilaahay cayr ka dhigeen ma ahayna waa dadkii Hargeysa dhisay ee Burco dhisay ee Ergaabo dhisay ee hodanka ahaa weeye oo la eriyey oo laftooda la cararay weeye ilaa maxay East Africa Europe meel kastaba North America oo dhan meel walba dad caymada ayaa jooga oo wadankan ka cararay niman aan la yaabo oo maanta ka madaxa Muqdisho madax ka sheegtay oo cid ka madax ma jirtay madax ka sheegtay ayaa waxa yiraahdaan israaca Soomaaliyeed muqaddas weey kelmadda muqaddaska ay garanayaan u mareeymaayo waxay tahay muqaddas waxa weeye wax dhowran oo Ilaahay loo nisbeeyo oo nadiif weey ninka muqaddas ku sheegay waxa maanta Soomaali dhex maray waxa kala kaxeeyay waxa kala dilay ninka muqaddas ku sheegay muqaddaska aan garanay dhaxlaa waxay tahay haddaba haddii maanta waxaad weydiisay goormaad in dalku kala goosatay waxaan goostay dalku inuu kala goo markii aan arkay dadkii reer waqooyi oo tashanaya oo tamar leh oo wixii dhexdooda yeelay shalay dhalay ka noqday xalay dhalay ka noqday oo maamulanaya dalkoodii iyo dantoodii ila laba suuga markaas oo la yiraahdo lagu xidho nin isagu danaysan kari waayo nin dhiigoodii inuu isu xalaaloobo banaystay wara dad isu cunaya dad tashaday iskuma xidhnaan karaan in loo taliyo dalkii markaa maantaasan
madaxweyne u yeedhay haddana Ismaaciil Abdidoon oo ka mid ah ragga iyagu wariyaasha barnaamijkan ka qayb qaata isaguna bal wax ka weydiin doona waayaha Soomaaliland iyo wixii kale la halmaan mudane madaxweyne habeen wanaagsan sanadku kolku waa 1976 waa su'aasha ugu horeysa waqti ra'iisul wasaare aad ka ahayd dawladda Soomaaliyeed doorashooyin baarlamaanna ay ka socdeen wadanka Soomaaliya eri ama ahaan kelmad ayaa laga reebay qaydin ku soorme bisayl iskuma awriyo maxay ka dhigneed qolada sida ugu dhawaaqday maamadan soo ugu dhawaaqay waxa ahayd labadii qeyni waxa ku qaybsataa bisaylkii iskuma awriyo waa isku mid hadalku waa isku midkii waxay ahayd maxay ahayd waxba dad baa wax qaybsaday markaas haddana waxay la kala damaaciyay meesha dhuusamareebna waa ka yidhi ariga ayalgaalna waan ka yidhi wixii aynu bisay ku qaybsanay ceerinkii bisaylkii iyana ku kala damaacayn saas ayaa arrinka loogu jeeday waa tahay su'aasha labaad ee ku weydiinaya mudane madaxweyne waxa weeyaan maamulka Somaliland ee aad madaxa ka tahay sidee buu u dhisan yahay wuxuu dhisan yahay si dimuqraadi ah oo adag oo wanaagsan oo hadii uu noo fulo maanta bilow baan nahay waxbaan u keenaye aan filayno inuu maxay ahayd dalkana wax taro dadkana deeqo ayuu ku dhisan yahay oo ku dhisan yahay baarlamaan saldadii ugu sareysay wadanka ah oo laba aqal majlis shuyuukh iyo maxay ahayd majlis nuwaab waxa ku xiga executive-kii oo nin president loo doortay oo isaguna dawlad dhisay oo isaguna wixii maxay ahayd tanfiidiya wadaya waxa ku xiga garsoorkii oo isaguna mustaqilka ah cid walba oo ay u madax yihiin nin chief justice oo ugu sareeya iyo 5 nin oo guddi la ah taasaan ku dhisnay waana si dimuqraadi oo wanaagsan sida Mareykanku ku dhow yahay laakiin waxaan filaynaa hadii uu noo fulo oo Ilaahay noo meel mariyo alla nala qabto wax walba Ilaahay ayaa maxay ahayd amarkeeda leh nala qabto waxaan filaynaa inuu markuu dego wax dalkana deeqa dalkana wax taray inuu in qoomiyada kala duwan ayaa ku nool jamhuuriyadda ama Somaliland marka waxa la yiraahdaa haday ku tahay xagga baarlamaanka iyo haday ku tahay xagga xukuumadda reer ayaa sad bursimo qaatay marka taas oo ma dheelitirno maamulka halkaasi laga sameeyay taasi may dhibaato u keenin qoomiyadihii meesha ku wada noolaa waxba u keenayso waa ka wada hadalay dad xoogaa wax yar saluugay waa jiraan oo walaalahaya ah aan ka maarmin laakiin waa arrinkaas waxaan filaynaa inaan xal u helno sababta aan waxba loo yeelin waxa weeye laba sanadood oo ku meel gaar ayaa lagu soconaya waxaan inta saa boorama lagu qaybiyay 2 sano oo ku meel gaar baa lagu soconaya labadaas sano aakhirkeeda intikhab caama baa dhacaya one person will vote qof walba vote buu leeyahay marka qabiil waa laga tagayaa marka beel baa wax lagu qaybsaday beeshii waa laga tagayaa marka dastuur cusub baan dhigi ayaa la dejin doonaa dabeetana intikhabkaas dhici doona waxay la tahay marka nin walba waxay la baday ayuu heli doonaa ururka SNM iyo ururada kale ee sida SDI iyo USF waxa ay ka mid ahaayeen kuwii qoomiyadaha waqooyiga kala gudbisan iyagu wakiilka ka ahaa markaasi maamulka markaasi horseedka ahaa laba urur ayaa iyagu waxay ayidsan yihiin midnimada Soomaaliyeed oo waa USF iyo SDI waxana ay wakiil ka yihiin qoomiyado iyagu waqooyiga Soomaaliya ku nool taa maxaad ku oran lahayd waxaan ka oran wax SDI la yiraahdo iyo wax USF la yiraahdo ma jiraan laba nin baa jira oo Admiral Haw hoggaan ku haysto oo xamar jooga waxay naga mas'aalo ma jirto mana iman karaan dalkayaga markii socdaalka aad ku timiday Djibouti waraysigii maalintii shalay lagu la yeeshay mar wax laga weydiiyay xaaladda Soomaaliya waqooyiga Soomaaliya jamhuuriyadda Somaliland waxa aad sheegtay in shuruudo ay noo hadsan yihiin ay idin hadsan yihiin si aad u codsataan aqoonsi adduunweynaha shuruudaha idin hadsan waa maxay waxa weeye inaan dalkii dejino
inaanu nimankii maleeshiyada ahaa ee maxay ahaydee waddankana iyagu xoreeyey markii hore haddana maxay ahaydee ku ah xoogaa dhiba oo ku ah in loo taliyo oo iyaguna taladii ogol in loo taliyo ogol laakiin maxay ahaydee ay weli annaga xagga awoodda ay noo dhammaanin in nimankaa laga qaado dalka oo loo sameeyo mihinado ay ku shaqaystaan qorigana laga dhigo dalkiina markaa bilayskiisii iyo dawladdiisii iyo baarlamankiisii xukunkiisu gacantiisa galo intaasaa naga dhiman intiina insha allah dhaqsay noogu dhammaanay raggaa hubaysan ee aad sheegtay mudane madaxweyne ma waxay ka soo horjeedaan dawladdaasi somaliland ka dhisan may kama soo horjeedaan nimankan waxaa weeye 2 sano ayaa la dayacay qolada Eritrea maalintii ay asmara galeen ayay walba qorigii inta laga qaaday majarafad loo dhiibo leeyahay shaqay orado qorigii waqtigii qoriga dhamaay majarafadan iyo madaraqan qaado oo shaqay marka 2 sano maalinta sidaa hadii la yiraahdo way ogolaayeen haddana waa ogol yihiin 2 sano ay dayacnaadeen ayada la dayacay marka meel wax ka cunaan markay waayeen iyo ciidu talisa iyo ciidu maxay danaysato ay waayeen qorigooda ku shaqaysteen oo ay maxay ahayd dariiqyadii ku fariisteen oo kastamadii ku fariisteen oo dekadihii ku fariisteen oo ku noolaadeen dadkii cashuurka ka qaateen taasaa la yeer talax tagtay haddaan doonaynaa imika inaanu qaado iyaguna ogolo wax ka diidan yahaan jirin xukun baanu ku haynaa meel madheero la yidhaaho aanu geynay oo imika tababar u socdaa oo biliis laga dhigi doonaa 5 kaam oo kalena intii kale aanu u samaynaynaa maalintaan nimanka arrinkooda dhammayno anu waxba isla diidan iyaga qudhoodii waa dowladnimadeedii taamuuyey xaaladda xagga nabadgelyada kol haddii aad carafka ku dhifatay guud ahaanba inuu Somaliland sidee bay tahay qaybaheega degmooyinkayga kala degan inta aan ku sheegay mooyaane nimadaas dabka sita mooyaane laba qabiilo buus ka dhaxaysa maanta ma jiro waa arrinkii waa kan shalayna sheegay dadku aad iyo aad buu degan yahay dadkuna raalli u kala yahay meel bay u wada jeedaan maanta inay dawlad noqdaan oo dalkooda dhistaan halkaasaa maanta hayaankooda jira ragga dhalinyarada ah markii waraysiga maalintii shalay aad sheegaysay mudane madaxweyne waxaa tidhi waxaa jira rag dhalinyaro ah oo hubaysan oo iyagu meelaha qaarkood dalka jooga oo meelaha qaarkood wax ka sameeyey oo halkan maanta duqu uu iigu sheegay madaxweyne xasan guuleed abtidoon baad u jeedaa baan u malayn duqa markaad lahayd marka taasi ma waxay ka dhigan tahay madaxweynaha Somaliland dul ahaan wixii Somaliland ka dhacaya warisgaarsiin ku filan oo uu ku ogaada ma haysto anigu dabadaan ka yimi waa haystaa wargaarsiin dadka waa ka warhayaa dabadaan ka yimi arrinkaasina maxay ahayd wax sidii maxay ahayd loo sheegay wuxuu ahaa wax accident dhacay buu ahaa oo halkan maxay ahayd law yacda ahaa oo aan wax qiimo caynkaas ahayn waxaan bogsiin ka ruwayaan aan dhamay sidii aan mudaysiin inuu ahaa ma mudane madaxweyne 1960kii waxaad ka mid ahayd raggii u dadaalay midnimada qaranka Soomaaliyeed sida aan wararka ku hayno maantana waxa aad madax ka tahay dawladda Somaliland ee waqooyiga Soomaaliya lagaga dhawaaqay dagaalka SNM marka hore iyo ururada kala gedisan ee waqooyiga Soomaaliya ay ku soo jireen adigu ma markii muqdisho dagaalku uu ka dhacay baad goosatay in ay raacdo gooni u go'a Somaliland mise horey dagaalka qayb baad uga gashay anigu waan xidhnaa dagaalka ma gelin dagaalku dagaalday buu ku bilaabmay xarigay iyo dulmigii aniga la dulmiyey ayuu dagaalku ku bilaabmay anigu waan ka xidhnaa waqtigaas dabeeto aan soo baxayna xamar baan joogay oo inta badan inaan dabadda u baxoba layma ogolaan jirin inta badan waqtigaan goostay inaan maxay ahayd ku biiro SNM marna intii ay dabadda ka dagaalamaysay kuway dhawaaqin dalka waa goosanayna markii dalkii la qabtay xamar iyadu dawlad gooniye iska dhisatay cali mahdi dawlad gooniye ku dhawaaqo iska dhistay ayaa war maxay noo ceeli wixii shalay qabnay maanta masalaad loogu daray bal horta markaas ay kaga dhawaaqeen rabaa goosanaya dalka goosu saas ku timi anigu marka halkaan joogay oo shir Soomaali lagu heshiiyay ayaan ka ahaa gudoomiye ku xigeen anigu waxaan goostay markii shirkaasi baabay aan quustay in xamar wax ka hagaagayaan ka quustay shirkii baabay wixii xasan guuleed ku dadaalay kulligii lagu dadaalay iyo qaraaradii la qaatay sidii wax loo habeeyay
markii laga baydhay xabad inta la tagay xabad la isu qaatay aan ka quustay xagga dawo ka imanayso ayaan kuwana dawo u dhowey kuwa ku biir dhaqaaqan ku biir dhawaanta magaalada Nairobi socdaalka markaad ku martay kulamaad la yeelatay kooxo Soomaaliyeed oo kala gedisan marka waxaad tiri waxaan ka hadlaynay dhibaatada Soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa isku soo dhaweyntoodii maxaa ka suura galay ما أساس يعني نك عيديد بان كوضع حضاري سيب هاي طلعت دي وحجب مودان تودي سيب حاجة قبل العين يعني دي وحجب مودان طلع حجب بيري تاية دي أنا مجوّر خمو إن لو باهي هاي أيجا أون الله لو حن مجبهن هاي يوحن مجمرتين هاي أنا كتير الرجال كسر بحية lama go'ay karo lama tagi karo ka soo bixi kare war walaalnimadii walaalnimo inagoo ah oo laba raas oo walaala ah oo isu fiiliyo oo wada jira oo dhiig iyo dhaqanba ka dhaxeeyo aan noqon oo isu beer xaalani ereygan xun dagaal ka geeyo dagaal wax aan kaaga tarin nabadna ka geeya joojiyo oo arrinka iyagii sidaas aan ku dhamaysanay ku warhayo naga ugu ogaada labada arrin aan weydiin laba su'aalood oo gagaaban baan ku soo gabagabayn qaybtii anagoo aan qaabilsanaa waxa mid ay tahay dawladda Soomaaliland shacbiga ku nooli dawladnimadaasi ka dhalatay sidee bay u qaateen sidee bay u soo dhaweeyeen wallahi waxaan anigu u qabaa waxa inay isfaashay waa la xisnugtay maanta kuma oran karo yani dadku oo dhamay waa xambaarsan yahay laakiin dawladda raali baa laga yahay dawladnimada loo haraadan yahay dalka in la dejiyaa baa la doonayaa dadku aniga aan ii danaynaynin ay iyagu danaysanayaan dhulkii dumay in dib loo dhiso dadkii maqnaa in la soo celiyo caruurtii in iskuul loo helo cusbitaaladii in dawo loo helo dadkii iyagaa danaysanaya marka dawladnimaana waxa ay ku gaari kartaan baa niyadooda gashay marka waa ka raali wax u shaqaynaya hadday helaan dawlad u tacbayso u socota hadday helaan waa ka raali waa la doonayaan dhowr jeer wafdiyo ka socda Faransiiska ayaa Somaliland socdaalo booqasho ku yimid wax ma la kulantay wala kulmay ninka ambassadorka ana wala kulmay kuwa kale yimiba waxaana aad iyo aad dadkii imka intii aan wax bilownay Faransiisku wuxuu ahaa dadka noogu dabacsan noogu tasaban noogu gacan weyn aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana maxay hayday si fiican waa noo taxkuleeya aqoonsigiina markaa si halkeebay ka joogeen baad aqoonsigan wala carabka ku hayso waa aqoonsigu ma aha wax hadiyad loo bixiyo dalkayaga markaan dhameysano dawladda dhisno imika yani waa bilqasab ku imanaya dan baa keenaysa waa la isku danaysanaya markaas waxa ka horeeya waxaan dalkii dhisno marka waxaan filaynaa haddii aanu anagu ka soo baxno shaqadayadii oo dalkii la arko inuu dal dawladdiisii gacanta ku hayso oo dhisan yahay nina looga baryi maayo markaa aqoonsi ugu dambeyntii mudane madaxweyne waxaan ku weydiin lahaa haddii ummadda Soomaaliyeed urur ha noqoto shacbi ha ahaato maanta Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxaan u dooranay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed lagu yiraahdo maxaad yeeli lahayd Somaliland bisa Soomaaliyeed madax ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed oo dhan hadday maanta ku tiraahdo urur iyo ummadba maanta waxa aan u dooranay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed president Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal maxaa dadka ugu jawaabi lahayd wallahi waxa weeye horta ingiriiska ah hypothetical question yani waxa weeye su'aal si u soo gashaaba aan jirin xamar nimanka isu geyn waay maxay hayday iyagi maanta isku dilaya ana madax noqonaya ay maanta 1 million kala marayaan dhiigisa oo qulqulayo weeye ilaa imma haddan isu hub samaysanayaan maalinta Mareykan tago nin waliba ninkii kala saabisay horta si ay watimaado nin kale aan madax ka dhigayna rag ururada meel kale madax ka dhigayna ma ay jirto aniga dad baa i doortay sama garan dadkii i doortay ee boorama igu doortay maanta mas'uuliyadda aan u soconayo hadday ilaahay nacay muuji waxaan yeeli laakiin kaale oo cid kale madax u noqo hadday koonfurtu ku timaado ma suura gasho hadday koonfurtu ku timaado ma suura geliso inuu ma yahay dadal madax waad maadsan dadal madax mudane madaxweyne waxa galay qaybtii u dambeysay ee waxaan isleeyahay raggan wariyaasha bal wixii way ka tageen isleeyahay aan wax jecelayn ka weydiin waay meel dhibaato kulay iyo dagaal ay ka dhaceen dad baa qaxaya caruur iyo haween waayeel iyo nin
weligiiba aan meeshii ku dhashay ama meeshii rugtiisu deganid aan ka dhaqaaqin baa tagay dadka ay sideeba u soo noqdeen qiyaas intee leeg baa soo noqotay xaalkoogu samaanta muxuu yahay dalka ma saakan soo qolidii baa qaxoonti ku jira sheegaysa soo ma asaas weey waxa weeye maxay hayday maanta aan noqon UNHCR aan wada joognay dadkaas waxa weeye dad maanta aan aad iyo aad uga warwarsanahay kaamka ay ku jiraan muddada ku raageen waa dadkan ku sheegayay ma aha dad xoogaa riyaalahayo ka baxeen oo caydhoobay ma aha waxa weeye dadkii cambaaburka iyo malabka ku quraacan jiray hodanka ahaan jiray weeye oo laga eriyo laftooda la cararay weeye dadkaas sidii aan uga qaban karo waxaan doonaynaa laakiin dalkii waxay kaga tageen markii hore wuxuu ahaa amni ay ka waayeen marka waxaan doonaa inaanu inamada demobilization aan sameeyno horta inamada hubka ka guro waxaan doonaynaa 2 malyan oo mayn baa ku jira dalka yagii oo afweyne geliyay iyo SNMba oo markii meesha lagu dagaalamayay kuwii deynta yimaadaan oo bam ku qarxo maxaa waxba u baantay aan kuwina sii guro dabeeto UNHCR wada habayno dib u dejin in iska yimaadaan uma xoogaa baa ka soo cararo hargeysana la jooga ee suuqay dowladda ay u yimaadaan halkii raashin baabay ku haysteen halkan markay yimaadeen markii soo hordhacay hargeysay ayay displaced persons ku yihiin oo ay ku cadilayeen marka waxaan doonaynaa marka in la bilaabo annaga iyo maxay ahayd UNHCR aanu dib u dejin wada bilowno wasaarad dhan baan u sameynay wasaaraddaas kala shaqeynaysa madaxweyne waxaa jira in tani sanadku markuu 1988 dadkaas qaar kamid ah oo soo gaalay jamhuuriyadda Djibouti ma ka wada hadasheen mas'uuliyiinta Djibouti si dadkaasi iyagana bal amuurtooda looga baarandegi lahaa ama looga fikiri lahaa sidii qayb ay uga qaadan lahaayeen barnaamijkaasi dib u dejinta idinkii aad qaban qaabinaysaa waa ka weeyaha labadaba kuwa xagga jooga Itoobiya kuwa halka Djibouti jooga labadu way isku jiraan arrinkooda waa wada wadnaa iyo kuwa Yemen jooga saddexdaba dadka qaarkood waxay baahayeen reer guuraa kolka horeba cid waxba kama ay sugeen roobkoogii iyo rayskoogii wax ka sugayeen kuwaas iska tageen kuwaas waxa la yidhi waxa qaar kamid ah waxa la caqaladeeya amniga awgood iyo waxa caqaladeeya oo dhibaateeya maadaama ay jirto dad sida adigu baad sheegayso hub haysta oo cid amaraysa inay jirin amuurtaas si wax looga qabanaya way hawl yartahay khibradda inta ka soo helay meel ceergaabo la yiraahdo ayaa 4 qolaa wada deganaa waa la isku qabtay magaaladii waa lagu kala tagay maalin dhaweyd maxay ahayd ayaa shir ceergaabo laga qabtay waa la isugu yimi waa laga wada hadlay wixii maxay ahayd la kala qabayna waa lagu kala bogsaday magaaladii dib baa loo wada degay marka inagu waxaan doonaynaa taa arrinka aad sheegayso oo balaankeeda wadnaa hadda noo unkan inaanu ama saylac ama geerisa ama cabdulqaadir meel caynkaas shir uga qabano dadkii dhulka wada ooli jiray wixii midmada waxa la saaro la isugu yimaado lagu heshiisiyo taasoo dhulkoodii oo walaalaa wada degaan mudane madaxweyne waxa taa ijtimaaciga ay soo raacdo kale waxa jirta in dadka waqooyiga ay ahaayeen kulka horeba dad dawlad aan ku xidhnayn oo iskood ka shaqaysto oo isdibra noloshaas way burburtay bayac mushtarigii ku salka ku haysay tii way burburtay arshiif iyo wixii dawladdu ay ahayd qoraal yaalina wuu burburay dadkii ninba gurigi uu lahaa maramaana ka dhacay haddana maanta iyadoo gargaar caynkaas oo muuqda ayna jirin nolosha nolol maalmeedka ninka Somaliland u dhashay sidee maxaad ka sheegi karaysaa maanta wallahi waxaan ka sheegi karayaa maxay ahayd nin wada ma ci qaaday iyo baakir sigaaro bilsan uu sitaa meel ka keeno isaaqada ilaahay baa bixiy meel uu ka keenay ilaahay baa marka laakiin wax imka un dalkii gaajo majaacada oo taala walo shaqadii yar tahay waxa shaqeeyaa yar yihiin xitaa waxa shaqeeyaan anaga dawladda wasaarada haday tahay oo aniga haday tahay mushaar qaata ma aanu lihin haddana dadkii waa dhaqan yahay oo wax majaacada oo meeshii ka jooga ma uu jiro taa kale aad sheegtay dadku dad shaqaysta inuu ahaaye xoogaagana laga bedelay waxa weeye aan had iyo jeerna maxay aniga iyo wasaaradayduba meeshii aanu ka hadlay baanu ka leenahay goosashadeen aynu ka goosanay koonfur macno iyo qiimo ay leedahay ma jirto haddii wixii aynu ka baranay xamar ku baranay aynaan xamar kaga imanin oo inaan hargeysa sidii aynu kaga tagnay ugu soo noqonin goosashadeen macno male marba haddii hargeysa ka tageedaan joogno mudane madaxweyne waxaad ka tagtay muddo 3 sano imika laga joogo waxaad qaaday dawlad markaasi inkastoo ay hababkayga ugu dhanaynba haddana ummad iyo shacbi iyo dhul baad qaaday waxay ahayd waxaad ku beerisay gobol kale oo Soomaaliyeed markaas saas ay u muuqatay dan xilligaas iyo waayihii la joogay waaga
in isla adigii 30 sano ka bacdi inaad gobolkii hore ku soo noqotood madaxweynahan ka ahay tira sidee bay nacam adiga shucuurtaadu sidee bay tahay markaad caynkaas leedahay وكل شيء يرجع إلى أصله بالجيري يعني نتراها كله وحوي يورت أرنكاسي مركز سعد وأكتر نكي عن هاي هيدي حوجا الحين وحلقة يا با إنه لا يرقلف سنة مركز كون نقول حوجا تاريخه وأنا كشيكي مركي هاي هيدي نكي الرئيس وعليه سيك كشيكي سيدي أي كتيمي شنت الصومالية إن شاء الله يسلطون سيدي أي كتيمي واتين كشيكيني سيدي إنجليز كمرة سوق كاني advantage loogu arkay eedeetana loogu haraaday ilaa la doon markii aanu doonay dabeetatii inagu aan doonay 7 sano ayaa lagu soconayay siyaasadii cunfiga ahayd oo inuu xabashi iyo Kenya iyo Ingiriis iyo Faransiis afarta qolantii babca u dhignaan ka adkaan Soomaaliyeed inuu ka adkaan oo dalka oo shan Soomaali saa isugu geeyeen 7 sano la waday taas way soo codantay waa iman kari weey marka anigu 7 waan sabeeto noqday prime minister noqday anigu in fidii shaqadeeda aad markii la doonayay aad iyo aad wax uga qabtay ragii isku hawlay ka shaqeeyay anigoo ahaa anagoo ku qoray xagga xabashida aad iyo aad ragii isugu hawlay ahaa anigoo markaa aanu qanacsanaa sidan aynu wax ku doonaynay iyo xataa inta la geliyay article la geliyay charterkii article lagu daray la leeyahay xuduudii gaala ka tagtay ee isticmaalku ka tagay lama burin karo waa in taas loo hoggaansamaa oo ay noqotaa xuduudda Afrika ka u dhaxaysa waa arag markaa waaqi waa noqday aniga iyo ragii markaas intiqaabka helay ee dawladda cusub 7 sano dhisay markaa uu sunnimay waa bedelay siyaasadda bedelay waxaan nidhi dalkii qolo waliba dadka ay ku dhex jirto iyadu sidee uga isaga soo gooyn lahayd ama isaga soo dhirin lahayd inuu laba isticmaal isaga dhirin dadka waa ku baabaayna hadii ay ugu nahan annaga u dagaalamayna oo xabashi la dagaalamayna annaga u dagaalamayna oo Kenya la dagaalamayna annaga u dagaalamayna Faransiis la dagaalamayna daawna ma kari karo super power manni waxaan siyaasadii ku bedelay inaguna waxay aynu ayidi karo aan ayid laakiin iqliim waliba isagu cid ku dhex jiro ama cid ay isticmaalsanaysa ha iska dhinriyo inaguna caalamkii marka aan nabad galno adeen hayn nabad galno iyagiina waxaan ku tari karaan ku tar laakiin nagu aan hubkii dhigno anagu Soomaaliya isla hal loo danay oo sidii baan anagu ayaan ku shaqaynay minor majorkii uu sheegayay ninkii ay arrinkii noqotay oo aanu soo sameynay faras diiwal faras baan ugu tagayo ani hadii nimankaas oo reer Soomaali Djibouti oo yeesa ay timaadona kama hari karo hadii si adiga la heshiiso aanu ku soo wax dama ku darsan maayo waa baarlamaanka qaaday wax oo iyo ku imanaya ma jiraan faraan naga qaado fidnada naga la baxay waa yahay faran soo ma garan marka sidaas hortu marka siyaasadii lagu bedelay maray dhashay arrinkii uu wala raaxaystay halkan dibba ka dhacday NFD dibba ka dhacday oo ay ka nasteen halkan waa ka nasteen wixii oo saa u socda markaas oo caalamkina u soo joogsaday ayaa fuinay neesh qabsaday afuin waa kii neesh qabsaday marka iska daa intii kale idinka waa kii ku kalifay yiri kaale aan iqliin baan noqonaysaa la barsaa baa idin soo diraya iska soo dhiiba wixii baartal ka soo dhigo soo dira wixii waa kii lagu kala tagay dabaato NFD xageedii u jeesatay halka loo kala jeestay waxa loo kala jeestay iska daa intii marka intii kala maanta iyada kala booday oo wuxuu ku dhex abuuray ayaa maanta ay intii kale ku kala maqan tahay tii xagaas isagu ka dhashayna ay ku baabaasan tahay maanta ku dhimatay mudane madaxweyne dhowr su'aalood baa haray oo xasaasi isle waxay dadka warka u kala geeyaa degmadan waxay yidhaaheen Somaliland waxay noqotay mid ku salaysan qabaa'il ku dhisan qabaa'ilkaasi ku dhisan loojiga sameeyay dawladdaas imika aad adigu madaxda ka tahay waxaa la yidhaha waxaan asaas u ah qabiilka la yidhaha isaaq qaar kale hadday sii fikiraan oo yidhaaheen anaguna mustacmaradii isaaqu ka baxay oo iyo anaguna ka baxaynaayo
oo dhulbahantaland ciisaland gadabuursiland ma waxaas land nin walba samaysto waa kula kaftamayaan nin walba hadduu samaysto abuur caynkaasa ilaa halkee bayna camde tagaysaa ilaa dowlad midba mid hadday kasii fircanto halkee bay gaadhaysaa nacma ilaa halkee gaadhaysaa waxaa weeye ma jirto taas ma dhacayso boorama waxaanu ku nimi beelo iyo qabaayil si kaloon ku iman kari lahayn ma jirin munadamad noo dhisnayd iyo axzaab noo dhisnayd iyo si kaloon ku iman kari lahayn ma jirin reer hebel baanu ku nimi markaan wax qaybsanaynin reer hebel baanu wax ku qaybsanay marka laakiin waxaanu ka dhiganay ballan 2 sannadood ku meel gaadha baynu sidaa wax ku wadaynaa ku meel gaadhayna wixii ka dambeeya beel waa la tuurayaayo waxay noqonaysaa intikhab ninkii waliba xisbi ku gelayay iyo kii hal iyo nirigtiisii ku gelayay isagii la joogtaa soo ma garan laakiin waxaa loo noqonayaa qaran baa markaa noqonaya intikhab baa la sameynaya taasi waa taas hortu taas saasaanu kaga beelo waanu ku tagnay dan baanu u kaliftay waana ku liibaanay oo meel baanu ku gaadhnay laakiin waa ka ballanay inay beeli hadho marka kala guurka labadaas kala guurka laga baxo taasi waa taas isaa qaanto ku soo sheegay waxaa yidhi hargeys waxa saaq la yidhaahdo oo meel taagan waa qalabiyadahoo meel taagan oo jiraa ma jiraan nimankaad sheegaysaa leeda aqaliyadu wey hargeysa waa kan maxamed cabdillaahi maxamed maalin walba iyagaa noo garnaqay saaqa u garnaqay waxaa maanta loo maaralayahay ee ay somalilan ka dhismi laadahay waa saaq soo ma garan nimanka aan wada joogno meeshana ama samaro ha noqdo ama dhulbaanta ha noqdo ama wurtigada ha noqdo ama ciise ha noqdo waa la og yihiin oo kuma jirto baqa isaaq halkaa intuu baxo waxaad yeeli doona idin isticmaalsan doona kuma jirto iyagana annana isuma qabno waxaa weeye dalkaas waxaa la yidhi magaalada burco la yidhaaho baa nin faar xusuusin la yidhaha baa odhan jiray burco waa rodol iyo rodol iyo nusrodol rodol habar jeclaa iyo rodol habar yoonis iyo nusrodol maxamed ciise awi marka nusrodolkaasi meeshuu raaco unbaa aqlabiyad ayuunbaa miisaanku u dhacaa budaa aqlabiyadiis marka waxaan ku leeyahay waxaa weeye isaaq meel uu wada joogo iyo wuxuu wada qabtay ma jirto meesha intaasi marto uun iyagaaba naga itixaad roone ayuunbaa dalka xukumi doonta mudane madaxweyne waxaa haddeer su-aal dhowr goor inamaduna wariyayaasha ay soo qaadeen ilase tahay inay wax ku eedan yihiin weli aqoonsiga horta waxaa ugu horeeya dadka in dowladnimadiisa isaga uu aqoonsado yaa ugu horeeya kolka dambe ama dibadda ha laga aqoonsado ama hala diido haddii aqoonsigii dibaddaba inagoo aqoonsan inaad dowlad tihiin u qalantaanna goosateenna dibaddii aad weydaan oo mucaamalaadkii iyo xeerkii dowladnimadu ay taasi albaabkaas idinku oodmo nabadna ay ka dhacdo koonfurtu ma u malaynaysaa haddana mar labaad in ay dhalato jamhuuriyad labaad oo soomaaliyeed oo xeerkeedii leh oo aan laysku khaldaamin wuxuu yidhi waxaa qur-aanka aayad qur-aan tidhi ilaahay nagu yidhi laa yaclamu alghayba man fi samaawaati waalardi ila allah subxana wataala sadaqa allahu alcadiim waxay dhici doona berri ee qeybka ah wax sheegi karaa oo dhulka jooga waa bilaadmigii ama erka jooga waa malaa'igtii oo ogigoon ilaahay ahayn ma jiraan buri marka ma odhan karo waxaasaa berritu dhacaya laakiin dadkayga haddaan ka warhayo ma aan filayo inay mar labaad raalli ka noqonayaan in xamar laga xukumo oo xamar baasboor u doontaan haddii xamar xukunkagaba laga daayo hargeysa iska xukuma la laakiin soomaalidu mid ahaata leelan waxaan ku yidhi mustaqbalka taas wax suuragal aan ahayn haddii la yidhaaho way ka tashan doonaan haddii la waxa dawladda idinkaan idin dhiibin ee idinku annagana xukuma way ka tashan doonaan bay la tahay laakiin anigu saan dadkayga ku ogahay maanta halkay taagan tahay dadkayga ma ogola maanta in mar dambe ay maxay ahayd cid kale dawladnimadoodii ka daba joogaan iyagoo reer waqooyi maaha isaaqa maaha gadabuursiya maaha iyagoo reer waqooyi reer somaliland ma ay ogola tan iyo ixtiraafka aad sheegaysa ixtiraafka bangladesh 3 sano la ixtiraafin markay ka gooday Pakistan 3 years ayaan la ixtiraafin maxay ahayd dalku haddii uu aan dejin inamada haddaan xoreyno oo aan cashuurtii qaadano oo dowladnimadii dhismo shaqadeedii wadano waaba ilaaweynaa maxay ahayd ixtiraaf oonu soo saaro annagu xoogaa noogu filan
recurrent expenditure waxay dawladda ku baxayay qarashkeedii iyo biliiskii iyo maxay hayday qaraanintii iyo xafiisyadii iyo xoolaha ku baxayay haddaan soo saarno shaqadii wadan waaba ilaawi doonaa maxay hayday islaam laakiin ma anfilayo inta lagu gaari doono mudane madaxweyne aragtida rag kale madaxda xamar isku haya taladooda ay ka qabaan Soomaaliland mid quruxsan ma ahan tii hadda aad sheegtay weyn laakiin warar hunuuyan oo soo gaaray Djibouti ama degmadan ku faafay waxay sheegayaan intii aad joogtay Nairobi inaad is aragteen General Maxamed Faarax Aydiid oo ku yiri in dawlad baan dhisaynay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaalow ka soo qayb gal dawladda iska daa sheekadan in dawlad baan dhisnay iyo waan goonadii amuurtaasina waxay muujinaysaa in aragtida ninka bari madax ka noqon kara koonfurta Soomaalida ma halis bay taasi amuurtaasi ku tahay mise way ka sii careysiinaysaa ummadda waqooyiga waxaan ku leeyahay horta arrinkaas wax ka jira ma jiraan maxamed faarax Aydiid ma oranin wadanka kale madax u noqdo maxamed faarax Aydiid 200,000 oo qof buu ku dilay si uu madax u noqdo ciduu hadiyad u siinaya madaxnimada ma ay jirto nin la yiraahdo Cabdilaahi Xaaji oo maxay ahayd been ka maamulo maxay ahayd BBC ayaa arrinkaas samaystay meel ka keenayna lama oga nimankaas markaas arrinka anigu Aydiid lama soo qaadin waxa weeye wax la dhan laga sameeyay ma jiraan wahagaag waxaan soo gaalinaa mataqaana laba su'aalood oo dambeeyay jamhuuriyadda Soomaalida marka aad ra'iisul wasaaraha ka ahayd waxay ahayd runaanta dimuqraadiyadda dhaba waxaa jirta intaas saxaafadood intaas soo xisbi nin walba wixii xisbigiisa aragtidiisa iyo ka cabiri jiray waxa la yiraahdaa maamulkii marka adigu aad madaxda ka ahayd iyo dhalay siyaad barreeyay afgambigii maadaama markii ay nacam qabiil uu ku salaysmay siyaasadda iyo qabyaalada isku xisbi qolo walba ay samaysantay oo la xadeyn kari waayo oo la xakameyn kari waayo dimuqraadiyaddii ilaa intii ay burburinayso dalka oo miraha maanta la guranayo maamulkii marka hore ka dhashay sidii Haile Selassie markii wuxuu ku dul fadhiyaba towradda qaraxay towraddana qurankii dambe oo basi maamusha amuurtaasi adoo way aragtinimadaas ka dhaqaaqaya sidee baa bal dimuqraadiyad loogu soo dabaali karay in xadaysan oo nacam la maamuli karo oo ayaha wadanka imika madaxda ka tahay عمر waa joogtay berigii waa laakiin yar baad ahayd ma aha taxliish aad samaysay ma run ma Soomaaliya waqti ka horeeyay oo 60kii ku siman ayaa dad gacanta inuu gelinay inagu isugeyn ama isla qabweyn Soomaaliya isla qabweyn tahay isla waxba la idin kama qaadi karo ayuu niman Ruushan la yiraahdo Soviet Union dalkeenii gacanta u gelinay المرتريين من يريدون سمايست دبد الله تجا فوش الله تجا جودها يدون كوكو تببرة يدون كيا دلعسين إنسان دلعسية يدون قوة ديار بيو هاي ما جوري دعضبة إنه يكهر رئيسه تطبيق سجالي لحدن إنه يكهر رئيسه أي فيلي كل بوا حي ظروف تطهيب لحدن سجالي لحدن كي بيتي سبب سجالي لحدن كنت مية كد لوجود الدشي يا عبد الرشيد كل انتينا waxay tahay markii aan anagu meesha soo qalay ayaanu lismaantani ku sameeynaanu furfuray waxa laala waxay xarkeen lagu xidhay shuyuuc noogu xidhna ka gaarsiiyay hadaba intaan dhamaynin waxaan dibadda idin toorinay ahayd ruushan baa sameeyay isqaarkii maxamed siyaad ma sameeyay aqal buu ku xidhnaa oo isku kaajahay ruushan baa sameeyay maxay ahayd ayaa sameeyay bahalkii isagaana waxa hore aad sheegaysan xisaabtii badnayd iyo waxay kulli isaa ka wada dambeeyay oo istiqraar dalku inuu helo aan marnaba doonin isagu ilaa uu gacanta ku qabto markuu gacanta ku qabtay xaqiiqatan yani runta wanaagsan wuu uga wanaagsanaa Mareykan iyo cid kale Maxamed Siyaad bi safgaran waayay inuu yaani gacanta markuu Ruushka ku qabtay dalkii 10kii sano ee hore ee ay saaxiibka ahaayeen Maxamed Siyaad nin Ruushka oo hebel ila Brezhnev inuu yaani وأنا من المتوجه ولا مدلل شو بالحمر وحي كلها تعليستين يا وحي كده وحي جديد تونا متر أركي مريم محمد سياوتي أفريقيا أردم ملوس تشوليس واي سوبر باور بكتير سنة ساس دوامر كده أنتوا دي فوجارين يو الدلك كي وحي دون توبي كجلين ملو بجلين مزابي جلين ملو بكجلين لكن ما يهين هذا الاستقرار أي نجو حقي إنك حماس حوي أما قبوينان وحبال اللي يلك رأينا سلاين هالنقطة أما خبرة الرؤية ما أنت سو أين ولي محايا هيدي دولة دولة لكن كذي أين ولي سوى أصلا بدل هالنقطة وينوس ديبني ولنور رقم
ismaaciil mas'uul baa ku soo gabagabadii way joogtaa baan u malayn yar bayna xogaa lagu su-aashan anuu doon lahaa imanka socdaalka aad ku marayso Uganda Kenya Eritrea Ethiopia iyo Djibouti ugu dambeyntii talada arinta Somaliland iyo Soomaaliya wax ka qabashadeedii Soomaaliya hadii wadamadaasi dariska kula ahi ay ku taliyaan ay isla gartaan qarannimadii midnimadii ummadda Soomaaliyeed adigu markaa taas deebaad u qaadan lahayd wallahi deetada la weydiiyay taa ma aha nimanka aan weydiin odayaasha weydiinay waxa weeye qarannimadii Soomaaliyeed hadii ay practical tahay way wax suura gelaysa tahay in maxay hayday ay dhismi karto oo iman karto waaba la oran karaa waa laga murmi karaa laba yaa hal isku diido hal isku yeelo waxa laga murmi karaa weey waxa maanta xamar jooga yaan raacna dadku waxa leeyahay ka go'in yaanaan ka go'in xagee bay jooga waxa maxaa jira xamar waa baabaaday gidaarkaas oo kala weeyay calimaha iyo caydiid baas oo baabiyay dhulkii meel lagu dhaqan yahay ma jirto arrinkii waa Soomaaliya maanta waxa weeye xabaal bay qaarka u saaran tahay dhulkii ma tagay Maxamed Siyaad baa laga sheegi jiray marka aan tago dhulka duuban kari maayo laakiin dadka ka tagi maayo oo jiray baa leeyahay I don't know inay ku taayeen dhab tahay waa sidii baa tiibaa dhabowday ilaahay dhab ka dhigay marka dee maanta wax lagu qabeeyo ma aragno yani annagii in la canaado oo la goy kari maysan sida caalim hadi mooyaan wax nolol qameelna lagu celiyo war ka tagina taasir ma hayno xogayaha guud ee qaramada midoobay Butros Qaali waxa aad ku sheegtay dana gaar ah oo Soomaaliya uu ka leeyahay in uu isagu adduunka uu kaga jeediyay in aqoonsiga Somaliland waa maxay danaha gaarka uu ka lahaa isagu waxa uu dunida ugu baaqay waxa uu dunida ugu baaqay waxa uu dunida ugu baaqay dhimashadii Muqdisho iyo agaarkeeda ka taagneed si loo badbaadiyo miyana ku horeyn wax kasta taariikhdu waa ka maqtay waxa weeye maxay ahayd ninkii Bush loo oran jiray ayaa ninkii u soo diray colkii maxay ahayd raashinka qaybinayay ayuu haay Butros Qaali maahay Butros Qaali iqliimkan oo dhan arrinaan halkan imika ka fasili karayno wax dawladda ka dhaxeeya iqliimka oo dhan buu dan ka leeyahay dan maslaxad dalkiisa inuu ka maamulo iqliimkan oo dhan Masar kolka maamulo baan ku yiri dalkiisa iqliimka oo dhan inuu u maamulo si uu ugu faa'iideeyo dalkiisa ayuu wada taasina de laba maxay hayday gari laba nin kama wada qosliso faa'iidadii marka waa yani dad baa inooga faa'iideeyay inaguna faa'iido beelay noqonaysa marka taas weeye wadana madaxweyne waxa raalli ku hata waxa su'aashii u dambeysay waxa taadu madaxweynihii u horeeyay madaxdii ugu horeysay Somaliland maxaan ka qornaa oo Maxamed Xaaji Ibrahim Cigal in barnaamijka maalintii uu maray waa kii sida la yiri la murtiyood oo lahayd ku saabsan Jamhuuriyadda Somaliland ku saabsan Soomaalida iyo maanta waayaha jooga maxaan ka qornaa oo ummadda geeska Afrika ummadda geeska Afrika waxaan leeyahay oo aan layga qoray hadii wax layga qoray anigu de xakiim miihi inta laakiin waxay ugu binixsan yihiin maanta Soomaaliya caafimaad baan leeyahay oo ay saddex raasiyad iyo laba iqliim ayay oo maanta ay dalkii ay jaarka la ahaydna la wada nabad tahay wixii aynu islahayn israac baa ku helaysaa aynu ku weynay maanta inagu oo saddex qoys oo walaalo ah hadii laga helo reer koonfureed hadii laga helo oo aanay ku dhooqan aanay dhiriqaynin walaalnimadii iyo wanaagii iyo wadajirkii haddaan iyagu dhiriqaynin waxa la Soomaali maanta ayay noqonaysaa iqliimkana qiimo ku yeelanaysa iqliimka gudihiisana ay qiimo ku yeelanaysa aad baa u maasantahay mudane madaxweyne waxaan filayaa in ummadda Jamhuuriyadda Djibouti aad fikrad u soo kordhisay in ku saabsan waayaha iyo nolosha Somaliland sida ay ku dhalatay dhibaato wixii maanta jira nin walba waxaan rajaynayaa barnaamijkan inuu suura galiyay in uu wax ka ogaado bal waayihii mataqaanaa maanta dhabtaha ee yaalay marweyn iyo mudan yalla waxaan intaas ku soo gabagabeynaa barnaamijkii maxaa karuna oo habeenkan caawa marti noogu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Xaaji Ibrahim Cigal maxaad reebani